dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul waxa aad ugu soo qulqulaya fanaaniin isugu jira kuwa magac ku dhaxla bulshada iyo kuwa aan sidaas loo xiiseyn heesahooda mashquulkii zaxmiga oo aad u sareeya ayaa maalin waliba laga dareemaa garoonka diyaaradaha Istanbul indhaha waxay qabanayaan dhalinyaro isugu jirta YouTubeley iyo kuwa kale waxay dhamaantood safaf dheer u galayaan waxyana guddoonsiinayaan fanaan waliba oo imaanaya dalka Turkiga gaar ahaan Istanbul haddaba aan idin bayaaniyo muhiimadda iyo ujeedka ay fanaaniintan u imaanayaan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga sanad waliba waxa ay fanaaniintu qabsadaan showyo loogu talagalay dabaaldegyada munaasabadaha ciida balse sanadkan ama ciida Carafa oo fooda nagu soo hayso waxa ay fanaaniintu ku balansan yihiin in show kalkacsan ay ku soo bandhigaan magaalada Istanbul waxaana magaalada xaadir ku ah fanaaniin aad u fara badan balse showga ugu horeeya waxa qabsanaya labada lamaane ee aan kala harin isla socodkooduna aan leecin haddaba waa kuwee ayaa isleedahay fanaaniintaas balse aan ku baro labadaas fanaan waa Saalax Carab iyo Barwaaqo Qalanjo showga la wada sugayo waxa ay daawadayaasha ku geli doonaan lacag dhan 100 teelo oo ah lacagta Turkiga balse u dhiganta $14 haddaba daawade haddii aad joogto magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ma ka qayb geli doontaa showgaas laga wada sugayo dalkan Turkiga fadlan share gareeya muuqaalka waana ku mahadsantihiin daawashadiini